caawinaya caruurtii Soomaaliday wax laydin carbinaya laydin caawinaya cilmi inaydin barataan oydan noqon xawaaliyo kuwa diinta caasiya dhaqankana ka carara waa maxay farqiga u dhexeeya caruurta halka af yaqaan iyo kuwa afafka badan ilmaha afafka badan yaqaana waxay si wanaagsan u kala dooran karaan waxa muhiimka ah iyo waxaan muhiimka ahayn waxa kale carabka lagu adkeynayaa gadaal dambe markay ay xafiis weyn ka shaqeynayaan inay sawaxanka iyo qeylada u dulqaadan karaan iyagoo shaqadooda dhugmo buuxda u yeelanayo caruurta markay afaf badan inay ku hadlaan rabaan markay ay goobaha lagu cayaarayo la joogo waxay ka fogaanayaan in ilmaha kale ay la hadlaan iyagoo raba inay asaagooda ka duwanaadaan taasi waa jawaabta dulqaad yeelashada balse macnaheedu ma ahan inaysan hadli karin afka haddaba kobcinta afka iyo dhaqanka af marka laga hadlo dhaqan ma baran karto dhaqan haddaadan afka aqoon ma kala haraan hadda maxaa dadka loo baraa culturalka ee Shakespeare sababtoo ah Shakespeare haddaad ingiriiska keliya ma ku baranayso dhaqanka ingiriiska ee waqtigaa jiray baad ku baranaysaa maalin baan haddaan tusaale idin siiyo aabbahay allah naxariistee baan maraykanka marka fatuuradayda baan waday marka meel xun dalcada iyo sidaan ugu taagay markaasuu wuxuu yidhi wariyaa xoolaha ku cayaarin xoolaha sida ka daa markaasaan alxaaji baabuurkaan anaa iska le kuwa igu cashuuri jirtay maaha markaasuu cabbaar intuu igu qoslay wuxuu yidhi nin la leeyahay muxuu leeyahay nin la leeyahay muxuu leeyahay weligii ma maqasheen haddaadan dhaqankaa ma garan karto haddaan afkaagu sidaa u kobcodsanayn meesha uu ka qaba dhanka diinta islaamka waa xadiis baa jira iyo dhaqankii buu ka imaanayaa afka muhiimadiisa ilmaha aday ku saaran tahay inaad barto haddaa qof weyntaana baro waxaa jirta oraah ahdaan qofna fikirkiisa iyo garaadkiisu kama qota dheeraan karo inta afkiisu leegyahay afka uu ku hadlaa inta uu leegyahay fikirkaaga hal abuurkaagu kama qota dheeraan karo tusaale hanti ereyga hanti haddaadan aqoon hanti ma yeelan karto haddaan kuu sheegaya dembi haddaadan aqoon waa ku dhacaysaa la baro haddaba sidee dadka qurbaha jooga carruurtooda u bari karaan af Soomaaliga aniga qurbe Ethiopia iyo Kenya qurbo kuma xisaabiyo sababtoo ah qurbo maaha waa dalal Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo degan baa jooga marka dhowr arrimood baa la samayn karaa kow waxa weeye iyada oo waalidku marka ugu horeeya uu dacfi uusan noqon oo uu ku faano dhaqankiisa afkiisa dadnimadiisa haddii aysan taasi jirin ilmihiisa ma barayo tusaalaan idin siinayaa maalan ba hadda Kenya joogtaan weli yaa arkay 20 jir Kenya ku barbaaray oo aan af Kenyaan oo Kikuyu 20 jir oo aan af Kikuyu ku hadlin way ma aragteen kisii ma aragteen laakiin 20 jir Soomaali ah oo Kenya ku barbaaray oo aan af Soomaali aqoon waa aragteen oo bara waxa kale oo ay ku sixi karaan waalidka oo bara ilmaha farta ba haddaadan u dhigin xageebu ka baranaya ma baran karo adeegsi ku jirta markaan isku soo guud ahaan ogow wixii ay horta wanaajiya wanaagsanaada barbaarinta carruurta marka laga hadlayo marka ugu horeysa waxaan leeyahay wareebo tuug oo ilaah ka bari inuu carruurta ku xafido wanaajiyana isaga awoodda iska leh hase yeeshee ratigaaga xir oo arrinta barbaarinta carruurta beerka ha ka rarin bismillah sidoo kale ayadana waa su'aal muhiim ah waa maxay caqabadaha ka haysto inay afka Soomaaliga baraan carruurta waalidiinta ayadana waxaan dhihi karaa laba qayb ayaa u sabab ah tan ugu horeyso mashaakilka ka jira horta dalkan aan ku noolnahay waalidka hooyada noqoto ama aabaha noqoto laftirkiisa waa inuu fahmaa dhaqanka ama
nolosha ka jirta qurbaha stress fara badanna waa jiraa dhowr meelood warqada way ka yimaadaan ayaga naftirkooda turjumaan u baahan mid taas way tan kala labaad sidaan horeba kugu sheegay meelaha qaarkood Soomaalida ma laha contact ama jaaliyad waa sidaan hore kugu sheegay jaaliyadu waxay ka tari kartaa barista afka Soomaaliga ciyaalka dalkan ku dhashto wax weyn sida dugsigii ama iskoolkii markii la helo markay aadaan iskoolka qalaad ama dalkan markay ka soo laabtaan galabtii iskoolka kale oo dugsiga markay tagaan ama quraanka la baro afka Soomaaliga loo qoro sida la socotay caruurta warqad cad way markay dhashaanbo hooyada iyo aabaha waxay ku qoraan ku qoran maskaxdoodna way fududahay wax walbana way qaadan kartaa marka توافق مالها أما إسفهم مجتمع كله قربها سيدا درتيدا علمي وحابك اللوما يبقى أفك الصومالي هنا يبرتان وقتي قودي انتو بدن 6 ساعات أما 6 ساعات وحيلا سوقاتان أجانب تدك جرمال كودل كان كونا سيدا وكلا أما كندن كاردن أنقض أما كيكا نقض أما إسكول كعادي متوسط كه guriga markay yimaadaan habarta naftirkeeda bala baraaba loo khad ida loo khad dalka ay ku nooshaa la baraa ma bari karto marka afka Soomaaliga sidaas meesha waxa ka baxay afka Soomaaliga horta arin in la aad ka dhawaajiso loo baanayo dadkana ay fahmaan horta dumarkeena Soomaaliyeed khayr badan la siiyo qurbaha oo kaliya ma xataa dalkii noocaas ay ku yihiin inta badan mas'uuliyadda isku duub eega qaato hadii korinta ilmaha ahaan lahayd waxbarashadooda hadii aanad hoolaha oo dhan inta badan boqolkiiba 70 aan dhihi karaa dumarka marka dalka la jooga beega qaato markii qurbaha la yimid waaba ugu sii darteebo mid waa taas waxaan rabaa horta inaan warka aan ka hadlo tan labada family kala degan labada family kala degan reer xamar waxay dhaadaan ninka alifkiisa wareero البخرديسة ما توست marka hore bilawga siday ku bilaabeen dhisida reerka ba khaldanaaybo tan ugu horeysa anoo war ku faahfaahinayo daruufa jiro wiilkii meel uu degan gabadhiin meel ay degan tahay waa is almadeen waa is rabaan ayaga waa is guursadeen sabab jira awgeed xukuumadda ba diidan labadii inay isku keento siday doontaa noqoto taas gudan u galeeno qaar waxa jira marka intaas baka fog markay wiilka is almadaan dhowrniyo adiga meeshaas aad degantahay anigana meeshaas aan deganahay muxuu guurka macna leeyahay dan loo meel kala degeeno marka hore aan isku imaano waraaqooy hawlaheena aan dhameysano meel markaan wada degno markaas aan is guursano mideeda kale Soomaalida hablaha Soomaali inay dhalaan dhalinkoo ku fududyiin wax contact ama heshiis ma jiro war ilaa 2 sano oo kaadina kadib ciyaal aan dhalna ma jirto midkii kan uurkiis markii la dhalo kan kala caloosh waa ku jira bila mas'uuliyad way ma ka fikraan waxa mustaqbalka sababta anaga muslimiinana sida ogtaan taas waxaan ruqsana muslimiinana ilaaha arzaaqda bixiyo laakiin sida darteed waa laga fiican yahay taas oo sabab ee mar walba hooyada Soomaaliyeed meel walba ha joogto ama dalka ha joogto ama qurbaha joogto inta badan mas'uuliyadda eeda qaado waxaan leenahay ilaahay garabkeeda galo waxaan isweydiiyey intii aan qorayay filimkan bal soo galootiga kale ee qurbaha ku nool in ay nala qabaan caqabadaha aan ka soo hadlay iyo in Soomaalida kaliya ay afka iyo dhaqanka ku dhiban yihiin markii la joogo qurbaha si aan bal arrintan wax ugu ogaado waxaan u martiyey Axmed Faiz oo ah Kurdi kuna nool Jarmalka isaga iyo caruurtiisa wareen waxay tahay sharaf inaad maanta halkan ila joogto amiga iyo sanadlaha waana idin soo dhaweynayaa ugu horreyn sidee waalidiinta Kurdida caruurtooda ay afka hooyo ku baraan الذين يعيشون في الخارج أطفالهم لغة الأم qof walba Kurdi ah meel kasta uu joogo waxa ilmihiisa afka ku baraa guriga yani reerka dhexdiisa
tusaale hadda waxaan joognaa Jarmalka carruurtayda waxaan kula hadlaa afka Kurdiga carruurtayda waxay aadayaan iskuulka waxa ayna ka soo baranayaan wax ku soo baranayaan af Jarmal sida awgeed waxaa qasab ah inaan guriga afka Kurdiga oo ah afkeena hooyo kula hadlo qof kastoo bani aadam ahna waa waajib ku ah inuu afkiisa hooyo barto markaas kadib af kale waa baran karaan afka hooyo waa lama huraan sidaa awgeed waa in waalid kasta uu carruurtiisa guriga ku baro laakiin waxaa jira dad dalkoodii waqti fog ka soo tegay oo dibadaha ku nool ayagiina afkoodii aan aqoonin marka carruurtooda ma bari karaan ubadkiina uma xiiseeyaa inuu afkiisa hooyo barto taasi waa iska caadi markii uu qof laba af isku baranayo culays waa jira laakiin qofka intuu yar yahay waxa uu awoodaa hal af wax ka badan inuu barto waxaana fiican qofka intuu yar yahay inuu afafka badan barto qasab culays waa jiraa laakiin inta ubadku uu yar yahay waa ka hortegi karaa culaysyadaas soo wajaho ايوه beri waxaa jiri jiray inaan hooyadii aabigu dhintay inanka waa ado kadib hooyadii daashaa iskuul butada daashaa qabatay doonay inuu qabto wax cunade kadibna waxay kusoo rursa jaafadaada waxaa qashinka roodhada tuuro roodhadaas wuxuu shaax lagu qoysay wax kuleel lagu qoysa markay cuno maaragtay kadib iskuulka qabtay inan buu bartay inaasuu jecleen inantaasna waxa dhacday boqol baa laga gabadhu jeclaada nin boqoraa laga haye inanka hooyadii ku dhamaantii daba inantaasaan jeclaa haddaan aan guursado isdilaya haye kadibna hooyadii waxay jirtay boqol tutuso haye way cabsadaysa waxay tiri boqol way iscaasatay wuxuu dhahaa qoos ka jira haddii ay xabiibido haye boqol inanteeda jeclaada haye kadibna wuxuu dhahay dahab 100 mitir inaad u sugisid laakiin miskiin baan aabigu maxaan ka karankeena dahabkii sugisid dahabka wuxuu dhahaa haddii kula dheeraado waxay labi inaad hadii aad weyniijira qortiga jira dahabka adoo kala dheeraado haye kadibna inantuu loo guuriyey dahabku lekaaday kadibna duriga gaday duri martuu jada maaragtay dahabka waxay ka keenay markaa hod buu galay nin baa helay ninta dee inaan tala aabihii nin baa helay wuxuu ku dhahay areertaa baa yahay walaalta aabihii baa yahay wuxuu dhahay duri imiday allah way kursiisa ku fadhisaa labaatay walaalkay meesha ku fadhiisa sidii maanta buu xeesta ku dhahay xoolan suubinaya maryan suubinaya wuxuu galay meel buu galay hod buu galay wuxuu dhahay faynuusta soo saar labada saddexda faynuus qaar xabad soo saarta wey sida markuu gal faynuustuu dhiibay faynuusta markuu dhiibay maaragtay wuxuu dhahay hooyada maaragtay hooyadan doonayna waxa u waxeeya geed lacagta soo kadib ninkan wuxuu dhahay faynuustiisoo dhiib u dhahay ninka uu dhiibay wuxuu dhahay iga soo dhis marka hore kadibna hod buu ku xidhay markuu ku xidhay markii dambe ina tarbiyihii waxbuu iyo waxaas u helay bes dhexdiisa taho beer soo cun kadib markii dambe wuxuu dhahay ayaa iga saar kadibna saasuu baartay wixii faynuusta usoo marmaray kadibna waxbaa usoo baxay waxaasoo dhan uu waxbuu dhisiiyo cunto meesha kusoo saaray kadibna gabadhii faynuustiiba gabadhi baa haysay gabadhu guursada haysay gabadhi wuxuu dhiibtay ninkii u dhiibtay gabadhiyo ninkii uu qaatay sheekada meeshaas ku dhamaatay waa mahadsantiin sidoo kale waxaa tahay waalid ama nala wadaagi kartaa fadlan waayo aragnimada aad u leedahay takhasuska afka labadayda gabdhood waxay 3
afar jir ku bilaabeen barashada laba af. Gadaal dambana iskoolka laga bilaabo fasalka 5aad waxay ku qaadanayeen Ingiriis, isla markaasna waa awoodeen dhammaan. Taasina sidoo kale waa tusaale toogan. Gabdhaha mid ka mid ah waxay jaamacad ka dhigatay Australia, waxayna ku qasbanaatay Ingiriis inay wax ku barato, waana ka guun gaartay run ahaantii dhib la'aan. Maya, si kastaba maahan culays weyn, waana loo baahan yahay. Maxaa yeelay ilmaha waxay awoodaan wax badan oo la malaysan karin. Cilmi baarista afka ee aan halkan ku hayno ayaa xaqiijinaysa inta aanu haysano inay qaadi karto in ka badan. gabagabada ka hor waa maxay fikradda togan ee ah in afaf badan la barto? Waxa ay leedahay wax badan oo wanaag intuu ilmuhu yar yahay inuu fahamkiisu fiican yahay. Si kastaba ha ahaatee, gabadhan ayaa tusaale wanaagsan. Sonia Ladd markii ay 18 jirtay, halkan waxaa ku qoran inay hayso ruusha ay dhegaysato, inay doodaha uga qayb gasho Ingiriis, inay wax ku weydiiso af Japan si ay u fahanto dumarka iyo isqurxinta waxyaabaha ku saabsan. Waxayna tiri taas aad ayay u fudud tahay. waxay ku soo nooleyn karaan tan ka soo qaad hadda ummadii ilaaha isku dira ma garanayo. waxaad arkaysaa hadda waddanka Jarmalka aan ku noolahay, samarada waxaa yimaado kooxo Afrikaan ay yimaadaan. waagii hore dowladda la ahaa xitaa Jarmalka gobolladu waa beri waa imaan jireen, waa ciyaari jireen, waa ka qayb geli jireen, waa la maxsuumi jireen. waxaad arkaysaa intaas soddon koox oo isla socda oo mid bir keliya garaacay, mid sacab tumay, gabdho ciyaaraya oo haddana heshiis ah. annagu marka balaayo waxay ka dhacday fankii heshiis ma aha, communitygii heshiis ma aha, siyaasaddii heshiis ma aha, dhalinyaradii haddana heshiis waxbay wada cunayaan, waxbay wada boogayaan, haddana waa heshiis. marka problemkana taagana waxay tahay hadday heshiin lahaayeen oo ay ku heshiin lahaayeen ayagu horta haddii isfahmi lahaayeen heshiin lahaayeen. haddana hadda waxaan ku heshiin inaan wax duubno oo halkan aan isugu imaano, hadal ma soo geli karno. see maxaan qabanaa? adigu kaa samee, adna kaa samee, adna kaamirada saa u toosi, cabdi baadir kamankaaga soo qaado, wixii aan ka wada hadlaynaa. muran soo geli kara malaha. siyaasadda Soomaaliya dowladnimaan soo celinayna, muranka geli kara waa aad ka garan kartaa. waa dad aan u dhalanba oo u dhashay taqaanaa muran iyo dagaal iyo isqabsi. marka taasaa naga maqan. haddii aad matalan kasoo qaad fanaaniinta cusub, fanaaniin heshiis way caan baxayaan, way isqabsanayaan, ayagaa dacwad isu qabo. maxay wax toosiyaan marka? wax ma toosin karaan. ayagayaaba is haysteen, maxay wax toosinayaan? marka meel ay fanaaniintii hore ay kala qabsadaan ay la-yihiin, ayagiina booskii waa laga riixday, wayna is haystaan, lamana hadli karo, lama toosin karo, wax looma sheegi karo. marka sida aad sheegaysa haddii inta la isu yimaado oo la yidhaahdo waa fanaaniinaya aan isu imaano oo aan isqaybino, sida hadda ugu heshiini inaan wax duubno, muran ma soo geli karo. hebel maxaa qaban kartaa? anigu hees waxaan sameynaya ciyaarka ku saabsan, kartoonna ah oo ilmaha waagii hore naloo sheekeyn jira. adigu maxaad sameynaysaa? anigu waxaan sameynayaa carraweel oo kale ayaan wax ka sameynaya. adigana anna waxaan ka sameynayaa ninkii la dhihi jiray cigaal shita, sheekooyin noocaas oo dhaqamadiina lagu soo daro. haddii lagu heshiiyo ay saa ku socdaan, balaanka waa balaan mugta. ilmihii interest bay u yeelanayaan, waxay u soo jeesanayaan inay af Soomaaliga ka bartaan. ilan group waxaa yimid af Soomaaliga weerar kusoo qaaday inay badbaadiyaan oo soo nooleeyaan. saasaa marka aniga aan kula talin lahaa, inkastoo dee aan la helayn, sababtoo ayagiibaaba heshiis ahayn. midna way jirtaa, mid kalena aan ku siinaa tusaale ahaan. familka naftirkooda Soomaaliyeed dhibka haystaa waxaa ah kalsooni ma jirto, maxaba ma jirto, jacayl ma jirto, ma iska warqabaan ayaga naftirkooda. annaga muslim aan nahay, bii'adaan kasoo baxnay oo muslimeed iyo dhaqan, waxaan u nimid dhaqan kale cusub iyo bii'ad kale. sidaa ogtahay ninka Soomaaliyeed mar walba wuxuu aaminsan yahay ar-rijaalu khawaamiina cala nisaa, siduu Ilaahay yiri. mar walba kelmadiisa inay kor ahaato u jecel yahay, qabkalaa ku jiro, dulqaadkaa ku yar. sidaas darteeda qabka asagoo ku jiray horta ninka ragga inuu meel dhigo, asagoo ilaalinaya familkiisa, gurigiisa iyo ciyaalkiisa,
dhaqankiisa iyo dadnimadiisa iyo luuqadiisa inuu iloobo si uu reerkiisa u xifdiyo mid kale hooyooyinka naftirkood mid ay ku khaldan yihiin aa jirto ay ilmaha ku fogaadaan luuqada ugu fogaadaan dhaqanka ugu fogaadaan haddii la rabo islaamnimada xataa ugu fogaadaan waxay tahay mathalan aabiyo wuxuu rabaa ilmihii inuu canaanto markuu canaanto hooyada ilmuhu maqlaayana waxay leedahay war cunuga ha iga circirin cunuga ha iga dilin cunuga saana ha iga yeelin yacni maalin walba waxay ku noqonay training wax soo noqdo odayga qalab joog ka qaada asagoo stress dalka ka haysta la qabshashada dalka waqtiga ciriiri ku yahay markuu rabo cunuga ilmahan khalad way galayaan markuu rabo odayga inuu canaanto habartiyaa hor istaagan waxaa laga yaabaa xataa inuu controlayo waxbarashada isku akhay marti miyaa guriga jooga maya oday aabiya dhalay waay mas-uulka guriga waaye kullukum mas-uulun wa kullukum mas-uuluna can raaciyatu dhalin waa inay qeybtiisa aabaha siisaa hooyo aabahana waa qeybteeda inuu siiyaa hooyada sidaas ayaa lagu waafajin karaa ilmaha inay luuqada xifdiyaan dhaqankooda xifdiyaan dadnimadooda xifdiyaan soomaalinimadooda jeclaadaan hooyadood iyo aabahoodna ixtiraamaan laakiin haddii ay hooyada aabaha dhahdo ilmaha iga cilcilinayaan xataa ilmaha aabaha ma ixtiraamayaan meesha waxaa ka baxay marka maxabadii kalsoonidii iyo ixtiraamka reerka uu leeyahay horta taasaa ugu horeysa burburka ama cunugii inuu luuqada loo hajibaayo ya ma lagu sheegan karo waqtigaa cariiri ah iyo fursad looma hayo sidaad og tahay dalkan aan joogno hooyada way kala hadaa shaqay aadaa aabahana uu kala haa shaqo aadaa haddii la rabo aabaha habeenkii subaxdii uu soo galaa subaxdii nabartaas iyo baxda subaxdii iidaa sii geysay iskoolka doortiina asagaa kasoo wado macnaha waxaa jira haddii ay labo dhexdood hataa khilaaf ka jiro ay iiga doodaan ilmaha banaanka ku yahay dooda marka waxaan fariin u diri lahaa ama aan dhihi lahaa dadkeena soomaaliyeed khaasatan familka qurbaha ku nool in ay isku dul qaataan hadduu khilaaf dhexdooda yaala xataa ilmahooda inuusan saameynin khilaafka haddii kale ilmaha ku burburaya qoyskaa ku burburaya afka soomaaliga ku burburaya dhaqankiyaa ku burburaya buuggan aad u jeedaan waxaa lagu qaataa fasalka labaad ee barashada afka Jarmalka waxaan ka soo qaadanayaa hal sheeko oo mala awaal ah oo ka turjumaysa gabar Soomaali ah oo magaceedu yahay Malaika Hadraawi Malaika Jarmalka waxay imaaday sanad ka hor iyada iyo wiilkeeda yarka ah markii ay dalka joogtana waxa ay xiisayn jirtay dul samaynta balse hadda waxa ay ka shaqaysaa hotel waxa aadkii ii soo jiitay ayaa ah in gabadhan aabo looga dhigay abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed ee Hadraawi waxa ayna khubarada buuggan qoray abwaanka magaciisa u soo xusheen markii af iyo dhaqan laga hadlayo inuu Hadraawi yahay aabaha Soomaaliyeed ee suugaanta iyo dhaqanka asagoo la meel joogo suugaanyahankii Jarmalka ee Goethe ama William Shakespeare Ingiriiska waxa uu magaca heerkaas leh ku mutaystay Hadraawi dhaqanka iyo afka Soomaaliya waxaa jiraan caqabado fara badan markii hooyada iyo aabaha ay afkooda si saani ah u yaqaanaan sidoo kale ubadkooda waa bari karaa ubadkaasina markii uu barto asagana berri carruurtiisa ayuu u sii gudbin karaa afkiisa hooyo marka waxaa jiraan waalidiin kurdi ah carab ah ama ciduu doona ha ahaadee kaasoo aan afkiisa hooyo garanayn marka ubadkiisana ma bari karo mar haddii waalidkiiba afkiisa uusan aqoon maxaa talo aad u jeedin lahayd waalidiinta sidoo kale ay ubadkooda culaysyadan oo kale soo wajahaan bulsho walba waxa ay haysataa hidaheeda iyo dhaqanka hooyo iyo aabbo ahaan waa inaan ubadkeenna u gudbinaa dhaqankeenna iyo hidaheenna markaas ayaan ilmaheenna fahmi karaan waxaan dhaqan u leenahay iyo caadadeena soo jireenka sidoo kale waa in waalidka laftiisa yaqaanaa ciidda waddankiisa iyo munaasabadaha laga xuso dalkiisa hidaha dhaqanka fanka waa muhiim sidaa awgeed waa in ubadka la baraa wax farqi ah uma dhexeeya
ma leh wax farqi u dhexeeyana ma leh bulshooyinka marka ay timaado dhaqanka iyo hiddaha inuu ubadka barto. Sidoo kale sidee ubadkiina u bartaan hiddaha iyo dhaqankiina? bulsho walba waxa ay haysataa hiddaheeda iyo dhaqankeeda. ka hooyo iyo aabbo ahaan waa inaan ubadkeenna u gudbinaa dhaqankeenna iyo hiddaheenna. markaas ayaan ilmaheenna fahmi karaan waxaan dhaqan u leenahay iyo caadadeena soo jireenka ah. sidoo kale waa in waalidka laftiisa yaqaanaa ciidda waddankiisa iyo munaasabadaha laga qabso dalkiisa. hiddaha, dhaqanka, fanka waa muhiim. sidaa awgeed waa in ubadka la baraa wax farqi ah uma dhexeeya. wax farqi u dhexeeyana ma leh bulshooyinka marka ay timaado dhaqanka iyo hiddaha inuu ubadka barto. اتصابي خدشت رزيلة اتصابي كإسماعيل أجي كلك تسباسيات الكم سجابي مرات انتو كان بريز جيروك وبخير هاتن سجابي مرات إن شاء الله شكرا. شكرا سباس. يا سلام عليكم. عليكم السلام. وحاجة لورابة ورابي ورابه حاول معرن كيليرا فرس فرستي مركز مال قد أو هودعه فيه ومعناه أسيبه أنا ومش هودعه بس حوس ده أنا بيها سكر سكسر من سكسر حسن كيف عرو حوس ده حتى وقدر كيف سيب بنا وصبها أيه مركو حاول معرن فرستي مركو وسي في الفودعه كال معان واي إيرما أون زايد أيه معان واي كال بيها أيه markaas ay nuqso wasoo gashay tabaay markuu ka darto oo gumiisanay marka si loo reen banac ku soo baxayna wasaay tabaay iiro macnaha faristo kurkiisa oo kale iyana kor u tuurtay marka banac ku soo baxay marka waxay dhacday haddii macnaha tabacaha nolosha macnaha hasku rumaysan aamin marka uu ka tagay saas ugu dhamaatay waraabihi hadahay macna faraski wuxuu ku lahay weligaa dawacaha asaga sheekadii oo Mustafa noogu sheekeynayay dawacada khiyaanta waraabihi asaga wuxuu sii khiyaanay faraski ma sha Allah sheeka xiisa badan waa maasantahay. caruurteena Soomaaliyeed waxaa ka maqan oo ilmaha qurbaha jooga ay haystaan sida kartoonka laga daawado TV-yada asagoo af Soomaali ah, buugaagta caruurta lagu seexiyo oo af Soomaali ah oo lagu sheekeeyo sheeko dhaqameedka, iyo in qorayaasha Soomaaliyeed ay wax ku qoraan bal sheekooyinka ay ku saabsan caruurta Soomaalida iyo dhaqankii iyo sheeko caruureedkii, taasoo gudbinaysa runtii ilmaha afka iyo dhaqanka u gudbinaysa in la helo. waxaan TV-yada Soomaalida iyo dadka lehba aan ugu baaqayaa inay sameeyaan barnaamij caruureed loogu talagalay caruurta Soomaaliyeed inay afka ka bartaan, dhaqankana ay ka bartaan, isla markaasna uu u fududaado ilmihii asagoo gurigiisa jooga inuu afka barto, sida caruurta reer galbeedka oo kaleeto oo guryahooda ku haysta kartuumanka laga fiirsado TV-ga oo ay ku bartaan afkooda, xisaabta iyo dhaqanka. waxaa kaleeto caruurta Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in ay helaan buugaag yaryar oo habeenkii markay seexanayaan loo aqriyo oo waalidka uu guriga ugu aqriyo oo lagu seexiyo. qasab ma aha in ilmaha loo aqriyo buugaagta reer galbeedka ama wadamadan ku nool yihiin Soomaalida qurbaha degan haddii ahaan lahay Afrika iyo Carabta, balse buugaagta yaryar ee ilmaha lagu seexiyo waxay qayb ka qaadataa in caruurta Soomaaliyeed maskaxiyan ama caruurta guud ahaanba maskaxiyan ay u dhismaan, isla markaana waxaa loogu gudbiyaa si fudud afkii. waxaad arkaysaa caruur yar oon aqaanin sida afkii loo qoro ama loo aqriyo, isla markaasna kaaga sheekeynayo sheeko ku saabsan waddankiisa iyo caruurnimadii waalidkiis ay soo mareen. maxaa yeelay taas waxaa fududeeyey in caruurta markii habeenkii ay seexanayaan loo aqriyo buug yar
oo iska kooban oo ilaa 12 page ka kooban kaasoo sheeko dhaqameed ama sheeko caruureed oo aan ku jirin wax cabsi ah oo habeenkii ilmaha hurdada wax u dhibaysa loo akhriyo ilmihii taasina waxay fududeynaysaa in ilmihii si fudud uu afkii ku barto asagoo yar dhegta uu ka qabto sheekooyin badan uu barto marka mar labaad waxaan tviyada soomaalida ka codsanayaa in ay sameeyaan barnaamijyo loogu talagalay khaas ah caruurta soomaaliyeed ha ahaadan kuwii dalka joogay ama kuwa qurbaha ku nool sida gaarka ugu baahan inay afka bartaan oo qayb ka naqanayo barnaamijyada tviyada soomaalida laga sii daayo oo looga faa-iideynayo caruurta soomaaliyeed meel walba ay joogaan si dhaqankii iyo afkii si fudud loogu gudbiyo ayagoo yarna lagu soo barbaariyo in afka ay bartaan waxaa kaleeto jirto run ahaantii bulsho walba waxay leedahay hadda matalan waxaan tagay Ethiopia, Kenya, wadamo deris nala ah oo Africa nagula yaalo way qabaan barnaamijyada caruurta oo tviyada laga soo daayo oo ama caruuraha hadda dihiyaan ama cartoon la sameeyo af Kenyan af Ethiopian ku baxay ha ahaado iyo khaasatan wadamada reer galbeedka aan ku arkay buugaagta reer caruurta lagu seexiyo taasoo qayb weyn ka qaadata in ilmihii ayagoo yar maskaxdooda lagu shubo dhaqankoodii iyo afkoodii wuxuu kasoo bilaabaa inuu ilmihii dhegaha ka maqlo sheekadii uu ku hurdo uu dhegeysto run ahaantii waxaa jirto oo ammaan mudan hooyooyinka soomaaliyeed haddii ay dalka joogaan haddii ay dibad joogaanba mar walba caruurtooda markii ay seexinayaan heesaha caruurta u qaado balse waxaan jeclaan lahay in kuwaas laftirkooda loo bedelo qoraal si canugii markuu weynaado oo waxyar akhriska iyo qoraalka fahmo uu asagana u akhristo berrina markii uu sii weynaado qof weyn wax bartay oo aabba ama hooyo gabadhii wiilka naqdaan ay ilmahoodii ay usii baraan wuxuu naqanaa qoraalkana waxa uu naqanaa mid kayd ah oo marba ka dambeys jiilba jiil ka dambeeyo oo usii gudbiyo halka annaga aan sameyno asagoo cod ah ama aan hooyooyinka ay u mariyaan ilmaha taasina marka waxay keenaysaa in matalan ilmaha qurbaha ku nool qaarkood ma yaqaanin sheeko caruureedkii markii aan yareen nogala sheekay jiray isku soo wada duubo run ahaantii intii aan ka warqabo ama aan arkay waxaa jira hal nin keliya oo Soomaali ah oo iska xilqaamay oo asaga xil iska saaray bal inuu soo nooleeyo sheeko caruureedkii Soomaaliyeed intuu caruur meel iskugu keenay buug u akhrinayo ba ta ja ha xisaabaadkii baray mahad gaar ah ka gaarto waa actor ana waa jilaa waa dadka ayuu ka qosliyaa waxyaabaha lagu yiraahdo afka qalaad stand up comedy oo sameeya maadi ha ka gaarto ba ta ja ya le ana le ya le ada le ya le ana ga le ba ta ja ho 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 iga ho dad badan oo cabdixakiim biyaar la mid ah oo xil iska saara in caruurteena ay afkii bartaan isla markaasna ayaga iskood u alifa sida cabdixakiim run ahaantii sida kalendarka guryaha la dhigto kaleeta qorada 12 bilood yani waa fikrad fiican oo la yimid ninkaas Soomaaliyeed abwaaniinteena daayirtahay hadda soo kacayso waxaan ka codsanayaa bal inay gabaygooda baraarujintooda dalkii dhisitaankiisa ka qayb qaadanaya ama ay dowladnimadii hala soo celiyo Soomaali hamidoodu ha isjeclaato ay bal ayagana ay ku daraan caruurtii bal aysan iloobin oo caruurtii ay sheekooyin ayagana ama gabay caruurta ku saabsan oo wanaag gudbinayo ilmaha afkana ka bari karaan fariintan u diri kara waxay tahay horta Soomaali waxay tiraahdaa magaalo sideeda waa madal dadkan markhaati way adiga aad kamid tahay dadka qurbaha jooga khibrad badan oo leedahay wax badan oo soo joogto waa soo aragtay fariinta aan u dirayo waxay tahay horta hablaheena Soomaaliyeed ama habeenkeenaba ilaan habeenku marna waa walaalaheena marna way noo dhaxay marna waa dhalin ixtiraamay inaga mudin inay ragga ixtiraamaan ragga
inay ixtiraamaan ay xuquuqdooda ilaaliyaan si asaga uu ixtiraamo reerkan uu badbaado burburka iyo furiinkan uu yaraado inay mar walba afkooda ka ilaaliyaan naagaa jira maamaah mar walba soo qaato oo dhaho 30 nin aroosow macnaa silac ku noolaa 30 nin aroosow ka fiican waa laga fiican yahay ninkeeda inay iimaansato gurigeedii ilmeedii inay ilaalsato ay sawirto sida dumarka Soomaaliyeed lagu og yahay inay u dhaqmaan hadduu Ilaahay hagaag waalidka Soomaalida iyo waalidiinta shacabka Jarmalka waxaan leeyahay in ilmaha afaf badan lagu abaabiyo taasina waxay leedahay saameyn xoog badan gadaal dambana ilmaha waxay ka caawinaysaa xirfadda noloshooda dhalinyaro badan inay kala garan doonaan heesta calanka iyo Soomaaliya toos oo heesta calanka inay tahay qolobo calankeed ugu dambeyntii iyo gabagabadii waxaa tahay fanaan waxaa tahay hobol kana tirsanaa jiray hoboladii waa beri ee Soomaaliya oday Soomaaliyeed waayo aragna ah waana iyo wax sheeg ummadda Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ka daawanaysa maxaad u diraysaa waxaan u dirayaa in la isku duubnaado waxaan u dirayaa in laga waantoobo xumaatada badatay waxaan u dirayaa in ubadka la badbaadiyo af Soomaaliga la badbaadiyo calanka la badbaadiyo waxaan u dirayaa in meediyaha weliba dadka meediyaha ee xumaatada faafinaya in ay joojiyaan haddii xitaa ceebtaada waa la qarsadaa haddii xitaa xumaan jirto in xumaatadii la qariyo in wanaagga la badiyo si ay ubadkii soo koray u dhegaystaan wax wanaaga sababtoo ubadkii haddii ay Facebook iyo meel walba xumaan ka dhegaystaan ayagana xumaatadii sii wadayaan dadka siyaasiyiinta waxaan leeyahay keliya waxay ku xiran tahay inay ayaga heshiiyaan haddii ayaga heshiiyaan Soomaalida colaadda way joojinayaan waqti in ayna jeebkooda iyo dhaqaalahooda iyo sumcaddooda qof keliya ayna eegin ay eegaan qarannimada iyo intaasoo Soomaaliya ay sugaysa in ay heshiiyaan kuna heshiiyaan in wadankii dib loo dhiso ubadka Soomaaliyeedna saas ay ku badbaadiyaan calankii ciidii qarannimadii dhaqankii ay saa ku badbaadiyaan waxaan la dhihi lahaa Soomaaliya ha israacdo hana midowdo guuli gobonimo ودين تعاسي دقنكنا كعررا رايم في عندك
في عندك أولاد؟ 600 لايت في الصومالية. أوه عندي. ربي عندك. لا قسم سويت. نيو كالين شيء ده ميرام كدوله. ميجي كذا زحمة جدا. ما شرط أنا في هذا. لا ندري أنا. أنا ندري كله. كالين شيء ده أنا ميرام توس علينا توس لا سؤال ما تقرأ ولا سؤال لكن ما قاعد يمشي لكن شو نسمع الجيم قوة اللي يصير بها كلها لا سمعنا كلها لا قلنا الوضع شيء هذا ما سند بلا ما حنا afkaagu waa astaantaada Yale, anale, yale, adale, yale, anagale, ba, ta, ja, ho, ho, o, iga, ho. Ba, ta, ja. Da, ra.